calanka.com. nimankaas magaalada jooga jiray oo qawaariijta magacoodu yahay magaalada dhibaato badan bay ku hayeen ummadda dhibaato badan bay ku hayeen ilaahayga weynaa waaxid ahayna maanta uu naga dul qaaday nimankaas hiil walaalaho loo yimaday dawladda noo timaday ayaan maxad uga haynaa naga dul qaaday xayaato aan ayaga ahaynoo in qof bini'aadam ay noolaatay ay qabaan ma jirin ummadda nololay ku dhaceen jiifay ku dhaceen joogay ku dhaceen ummaddii waa baabi'iyeen waxa hubaaba nimankaasi hadday janno jecel yihiin oo aynan walaalaha reer buule burde yar iyo weynba assalaam We were welcomed by the population. We did not only liberate the area, the city, but also there are several youths which was tried by the court of Al-Shabaab to be headed on the coming days. Also, we liberated these guys. So the population is warmly welcoming, and they are expecting from us and from AMISOM to liberate the rest of the districts which is under the control of the Al-Shabaab extremists. calanka.com.